isweydiinta mudan ayaa sideeba hadaba dadka ugu soo bandhigay macnaha passwordhiga iyo emailkii waxa email maaha magaca lagu galayaa magacu waa kan passwordhiguna waxa weeyaan password macnaha aanu sameeyo oo isleeyahay dadku macnaha ha ku qoraan passwordhiga ma password meel kale ku xiran magaranaysa ha ku wareerin ku sheegay mara haboodi passwordhiga inuu meel kale ku xiran yahay meel kale ku eegin passwordhiga waxaan ugu talagalay kaliya TikTok tan ku sheegay mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar boqolaadba passwordhiga waxaan ugu talagalay TikTok tan kaliya waxa lagu galayana wax weynba ma ahaba waa magacaygo magarateen inta sameeyna xogaan ka dhigna entertainment mara laba password baan meesha soo dhigaya mid waan qaldayaa oo ogaamanu qaldayaa midna waa kii saxda sababtoo waxaan hubaa in video marka YouTube soo dhiga ay kumanaan kun oo qof daawanayaan magaranaysa marka waxaan rabaa qofka inaan chance labaad siino mana hadii uu koobaad ku waayo laga yaabo inuu labaad ku waayo sababtoo laga yaabo qofka kale isagoo ku day inuu password qaldan ku day marka waxaan isku daynaa in entertainment ka dhigno ama fair aan ka dhigno uu qof walba isku day kala dad hal password ka dhigo hubaa 700 ugu horeysa kala qaadayso soo hubaaba mana hor galaysa marka waxaan ka dhigaynaa wax yara fair oo mana entertainment oo xogaa dadka maskaxda ka rogo magaranaysa marka laba password baan soo dhigaya meesha mid waa kii saxda ahaa midna uu qaldan yahay laakiin xarafka ugu dambeeyo baa macnaha qaldan xarafka ugu dambeeyo baa xaraf kale ah marka diyaar ba taa ma leeyahay imika waxba saaw eegaysa waxa leedahay passwordhiga magaca ku qor dirisa soo dhiga magaca ama waxa isku dayday inaad soo dhaafisid intii hore hadlayo dhan oo ultimate kaliya toon maxaa leedahay intii dambe passwordhiga waxa laakiin hada saas sameysay taa macnaheedu waxay tahay ma ogid labadan password marka aad baan ugu xumaay magaranaysa saama sameeyna magacu waa kan magaca baa lagu galay xaan ku yaala chance baan siinaya magacu waa kan kama qaaday wali screenka